السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتسلامتين دمانتينا ميل كستوات جوبتان سود هذا مركله وانيقو نور إبراهيم عليا وحن دوني إنان إنسو قدبيو عشرة ذين هريان أسوقانيو أها Basic English Lessons Lesson 2 أما 10 كلابات أيام دوني يمانتا هالكانينا كسو قدبيو وحيوان كالي دونو مانتو حوية and kuwa wax tilmaama oo loo yaqaano these, those, that and who. kuwani ayaan jumlado gelin doonaa waxyaabaha ay qaadan doonaan waan arki doonaa. this waxay qaadataa is ay qaadataa horta aan ku laabto hal mar and this waxa weey kan way kan ama tan waxaan ka fogay marka this waxa weey kan way yani wax ku dhow way this no waa kuwani ama waxyaabo badan oo meel dhow ku jira kani waa hal xabo oo keligiis ah oo meel dhow ku jira those kan waxa weey kuwa badan oo ka fog way that-na waa hal xabo oo ka fog hunu waa kuwa ama yaa waay oo kale intaas waa loo isticmaalaa marka mid kasta wuxuu qaadanay aan fiirno this waxay qaadataa is qaadataa that is qaadataa maadaama labadaan ay singular ay yihiin oo midkani uu yahay alxabo oo ku dhow isu qaata kana alxabo ka dheer isu qaata this maadaama plural ay yihiin ayagu are qaataan those waa plural ayaguna are qaataan who ayadu waxay qaataa isna way qaataa arna way qaataa meesha is waa macnaheedu waxa weey hadii dad badan who loola jeedo arban siinayna hadii hal qof loola jeedana isan siinayna marka tusaalooyin baa la soo geliyay waxa la what is this kani waa maxay this is a man kani nin way what is this kani waa maxay mar kale this is a woman tani waa haweeney what is that kasi waa maxay that is a boy kasi wiil way or what is that kasi waa maxay mar kale ama taasi waa maxay that is a girl gabar way taasi gabar ayagu aar wato marka halka dhinacanimo what are these kuwani waa maxay these are people kuwani dad way what are these kuwani waa maxay these are students kuwani waa arday what are those kuwaasi waa maxay those are soldiers kuwaasi waa askar what are those kuwaasi waa maxay those are teachers kuwaasi waa macallimiin who is this kani waa maxay this is my paternal aunt kani waa eedaday waa paternal aunt waa maxay eedaday waa waxaa jira paternal aunt iyo maternal aunt waxa la oo maternal aunt habar yar way paternal kana waa eedo waa aunt hadayso who is that kasi yuu yahay isaga that is my maternal uncle kasi waa abtigay waa abtigay meesha haday paternal ay noqoto adeer waay hadii maternal ay noqotona abti waay qaybta waxaan ku bilaabayn marka aan ka galeynaa pronouns waxa la magacyaalada pronouns magacyaalada subjects sameeyal objects no lagu sameeyal ereyga pronounka sidii isu rugo I aniga you adiga they ayaga we anaga he isaga she ayada it waa wax ama shay walax intaas way tahay qaybtan marka ayaguna waxa weey waa la mid laakiin waxa jira wax la objective case iyo subjective case jumlada tan jumlada laga bilaaba tan jumlada loo dambeeysiya me aniga you adiga them ayaga us anaga him isaga her ayada it ayada marka hababka ay u shaqeeyaan waa baab kale ee gooniyaha u sheekeynayna marka maanta xiisadeena halkaas ayaan ku soo gabagabeynaya aad iyo aad ay u mahadsan